Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhammaan akhyaartayda waan salaamay casharkan wuxuu ku saabsan yahay sidii ISO-gaaga aad ugu duubi lahayd DVD Windows 10 kaasoo oo isticmaalaysid inaad kombiyuutarka si Windows ugu bedeshid. Casharkan waxaa loogu talagalay ardayda bilaabo inay ka faa'iidaystaan marka sidee u duubaysaa ISO-gaaga DVD Windows 10. Welcome to my YouTube channel. Marka sidaa ugu soo image pen ayaan isticmaalayaa kadibna kombiyuutarkaaga tag DVD-gaaga waa in aad asaaskeeda kan waa 8GB. Windows-gaagana waxaa laga yaabaa inuu ka yar yahay ama ka badan yahay sababtoo windows badan ayaa la isku daraa. Kadibna image pen-ka ayaad furaynaa si aan u soo kaco barnaamijkana sidaan ayuu kugu soo baxayaa. Kadib waxaad leedahay write image file to disk ayaad leedahay. kadibna browse-ka ayaad tegaysaa please select file meesha ku qoran tahay. kadibna faylkaaga kombiyuutarka meeshuu kaga jiro ayaad soo dooranaysaa. marka double click ayaan siinaa si toos automatic u soo qaato ama right click ayaan leeyahay properties ayaan leeyahay si aan u ogaado size-ka uu yahay. waa ujeedaa 6GB waa DVD-gana markaan fiiriyo DVD-ga si fiican ugu laabatid sababtaas ku fiirso ardayga bilowga waxa laga yaabaa inuu dhaho maxaa Windows ugu duubi lahaa DVD-ga size-kiisa inuu ka yar yahay laga yaabaa. marka DVD-ga isticmaalna waa 8 Windows-ga 10-kana waa 6GB marka waa ujeedaa wuu ku duubi karaa size far badan ayuu haystaa. laakiin hadduu Windows-ga haysatid hadduu size-kiisa aad u weyn yahay DVD-ga yar taas ayaa dhib ku jira. kadibna waxaa leedahay write speed-ka ayaad tagaysaa waxaad ka leedahay 16 ayaad ka dooranaysaa. kadibna meeshaas koobiga inta artid ayaad saaranaysaa wax dhib maraan. kadibna waxaad leedahay iduub jag ayaa siinaysaa right-ka kadibna wuxuu sameynaya inuu duubo. marka kuu diyaaro waxaad ogaanaysaa Windows-ga sidaas ayuu sahal ugu duubi kartaa adigoona dhib dheer marin sababtoo DVD-gaaga markasta u baahan tahay inaad ama saaxiibka ayaa u baahan ama meel ayaa dhigi kartaa qofka kale ayaa sii kartaa. waxaa ogaanaysaa muhiimadda barnaamijkan si automatic ayuu isku xirayaa markuu dhammeeyo in uu canjalada ku duubo. kadib wax yar ayaa u dhiman si automatic uu share waa kadib markuu xiro waxaan soo furinayaa barnaamijkan ku tijaabi lahay oo Power ISO aan isticmaalaya software-kaas adiga nooca ratid ayaad isticmaali kartaa noocyo badan ayaa ISO loo isticmaalaa. kadibna waxaa leeyahay meeshaas non bootable ku qoran image wuxuu markaan soo furo tool kadibna appended data to disk markaan dhaho kadib si automatic ayuu usoo qaadan DVD-ga kadib okay ayaa leedahay kadibna import ayaa ku dhufanaysaa. kadibna ujeedaa meesha non bootable waxyaabo markaa sugtid wuxuu leeyahay Windows-ga si toos ayuu usoo gelinaa. kadibna ujeeda analyzed Windows waa diyaar bootable inuu ku yahay marka Windows-gaaga si toos ayuu diyaar kugu yahay. marka insha Allah bina kaliya wuu ku fududahay inaad ka faa'iidaysato ayaa rajaynaya. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. jazaakum allahu khayran.